magacaygu waa Dr. Maxamed Qaasim Cabdulle, ku takhasusay cudurrada indhaha iyo daaweyntooda. Maanta waxaan ka hadlaynaa waxa la yidhaahdo allergic eye ama xasaasiyadda indhaha. Waa cuncun iyo barar ku yimaada xuubka cad ee indhaha ee la yidhaahdo conjunctiva. Sababtuna tahay xasaasiyad ma ahan caabuq ama infection ama viral ama fungi, mana ahan mid la isqaadsiiyo oo qofka kale u gudbiyo xasaasiyadda. Haddaba maxaa keena allergeniska ama xasaasiyadda? Ilaa dhowr qodob ayaan sheegi doonaa oo sababta xasaasiyadda ama cuncunka indhaha. Bullinka waxa la yiraahdo ama boorka ubaxa, dusty mites ama boorka guriga ama siigada, iyo busta. Sidoo kale waxyaabaha keena waxaa ka mid ah xasaasiyadda indhaha: timaha xoolaha, catarka, qiiqa, urta, kiimikooyinka, make-upka indhaha ama qurxinta indhaha, foldiska. Sidoo kale waxyaabaha cuntooyinka qaar dadka ku kiciyaa jiro sida ukunta, malayga, digirta, yaanyada, busbaaska. Qofba waxaa ku kiciya inuu qofka ogaado oo waxyaabahaas ku kicinayo uu iska ilaaliyo. Haddaba meeqa ayay u kala baxdaa xasaasiyadda indhaha? Midda koowaad waxaa la yiraahdaa seasonal allergy conjunctivitis, oo micnaheedu yahay xilliyo gaar ah ayuu yimaadaa xasaasiyadda ama cuncunka indhaha, sida xilliyada guga iyo deerta, springiga iyo summer. Labadaas xilli ayuu yimaadaa, waxaana keena bullinka ama boorka ubaxa. Nooca labaad waxaa la yiraahdaa perennial allergic conjunctivitis, wuxuuna dhacaa sanadka oo dhan, waxaana keena boorka guriga iyo xoolaha. Nooca saddexaad waxaa la yiraahdaa vernal keratoconjunctivitis ama loo soo gaabiyo VKC. Badanaa wuxuu ku dhacaa caruurta yaryar iyo dhalinyarada. Sidoo kale xilliyada xagaaga ayuu ku badan yahay caruurta iyo dhalinyarada inuu ku dhaco VKC-ga ama vernal keratoconjunctivitis. Aad ayuu u daran yahay marka loo eego xasaasiyadaha kale, sababtoo ah wuxuu dhaawici karaa korniyada ama wilka madow ama bu'da. Nooca afraad waxaa la yiraahdaa asigana atopic keratoconjunctivitis, wuxuuna ku dhacaa dadka qaba eczemada ama atopiga, waana chronic, wuu daba dheeraadaa. Haddaba waxaan wax ka tilmaami doonaa symptomska ama calaamadaha lagu garto. Calaamadda koowaad ee ugu muhiimsan waa calaamadda itching-ka ama cuncunka aadka u daran. Calaamadda labaad ee lagu garan karo waa redness, indhihii oo gaduuta ama casaada. Sidoo kale calaamadda saddexaad ee lagu garan karo waxaa ka mid ah watery ama biyo indhaha ka da'aya. Calaamadda kale oo xigta ee lagu garan karo waxaa ka mid ah qofka inuu dareemo burning ama gubasho kala. Sometimes haddii la daaweyn waayo ama mararka qaar xasaasiyadda waxay keeni kartaa aragtida inay xoogaa yara daciifto. Haddaba sidee lagu ogaadaa oo lagu diagnosis gareeyaa? Baaritaanka ugu muhiimsan waa in history taking qofka laga qaado ama taariikh family history oo xasaasiyadda hore u jirtay, ayadaa hereditary ku imaado dhaxaltooyo oo jiilba ka jiil waalidka uu ka dhaxli karaa, ama acquire ama qofka asiga ku dhici kartaa marka uu dhasho in history takingkaas laga qaado. Sidoo kale waxaa la weydiiyaa in taariikh ama hindhisho fara badan uu leeyahay ama neef qabatin uu dareemayay. Kadib dhakhtarka ayaa fiiri doono, uma baahna baaritaan shaybaar ah, baaritaan keliya fiiris ayuu u baahan yahay in la eego oo sida lambiga lagu fiiriyo, oo doctorka markuu arko kadib asiga ayaa go-aan ka gaari kara. Haddaba sidee loo daaweeyaa? Daaweynta laba ayaan u kala qaadeynaa: mid ka hortaga iyo mid markay xasaasiyadda hayso daawooyin loo qoro. Ka hortagga qofka inuu qiiqa iyo siigada iyo dhastiga iyo bullinka iyo
waxyaabahaas uu iska ilaaliyo iyo waxa kicinayo dhan inuu iska ilaaliyo cuntooyinka qaar hadduu sensitive ku yahay inuu ogaado uu barto iska ilaaliyo maraamarka faraha badan uu yareeyo kadib marxaladaas uu ku sugan yahay xasaasiyadda ku kacsan tahay daawooyinka la sii karo waxaa ka mid ah daawooyinka la yihahdo antihistamine drugska daawooyinka labaa loo kala qaadaa xasaasiyadda antisteroid drugska sida prednisolonka dexamethasonka betamethasonka kuwan antihistamine drugska la yidhaahdana waa loratadinka strizinka chlorpheniramine marka waxaa aada u fiican oo dhibaatana aan geysanaynin oo qofka indhihiisana dhaawaceen for long time muddo dheer isticmaali karo daawooyinka antihistamine drugska sida chlorpheniramine strizinka loratadinka ama idrobiska olobetadinka oo kale ama kuwan kaleeto hadduu dhakhtar ku arko inay xasaasiyadda aada u daranto safiir allergy qofka uu yahay wuxuu sii karaa daawooyin combinationka ama daawooyinka steroidka sida prednisolone idrop oo kale nastomin oo kale waxyaabahaas uu sii karaa laakiin waa at least inuusan qofka iska badanin muddo 7 days ka badan uusan qaadanin 7 cisho kadib inuu iska joojiyo ayaa lagu taliyaa sababtoo tahay hadduu muddo dheer steroidka isticmaalo daawooyinkan soo sheegnay prednisolonka oo kale waxay sameynaysaa IUB-ga ama intraocular pressure-ka biyaha aragga dila ayay kor u qaadi kartaa qofka markaa soo dareemayn ayuu indhaha sidaas ku beeli karaa marka waa inuu qofka dhakhtarka la tashtaa oo daawooyinka steroidka la yihahdo muddo gaaban isticmaalaa halka antihistaminkana ay muddo dheer iska isticmaali karo waxaa xoog badan steroidka waxaa xooggeedu yaryahay daawooyinka antihistaminka sida loratadinka strizinka chlorpheniramine olobetadinka kuwaas awoodooda waa yarta ama prednisolonka dexamethasonka iyo kuwaas betamethasonka waa steroid drugs la yihahdaa aada ayay u xoog badan yihiin indhihina waa dhaawaci karaan 7 cisho ka badan qofka duu si aada usii isticmaalo marka antihistaminkaas oo kale qofka 1 times 3 ama 1 times 4 4 jeer maalintii ayuu hal dhibic indhaha iskaga shubaa sidoo kale wuxuu qaadan karaa oo daawooyinka artificial tearska 4 jeer ilaa 6 jeer maalintii steroidkana dhakhtarka ayaa go-aanka gaari karo uu arki karo in markaas loo baahan yahay